Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Kismaayo kulan isxogoraysi kula yeeshay dhalinyarada ku nool magaalada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo dhalinyarada u muujiyay hoggaanka dalka ay muhiimad gaar ah siinayaan arrimaha dhalinyarada ayaa uga jawaabay su'aalo ay ka weydiiyeen xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, qorshaha amniga, waxbarashada, caafimaadka, doorashooyinka, shaqo abuurka dhalinyarada, kobaca dhaqaalaha, maalgashiga iyo barnaamijka deyn cafinta. Dhammaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayuu sheegay ra'iisul wasaaruhu in mas'uuliyadda ay ka saaran tahay u adeegidda bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, isagoo intaa raaciyay in ummadda Soomaaliyeed ay kula xisaabtamayaan waxa ay dhisaan iyo waxa ay qaldaan. dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dadka madaxda ka ah kulligeen mas'uuliyadda dalka naga wada saaran sideedana kulligeen waxaan kula xisaabtamayaa laba arrin waxa aan dhisnay iyo waxa aan dumino dalka meeshuu ka hagaajisan yahay waa inaan sii hagaajino meeshuu ka halaysan yahay waa inaan toosino sababta hadda halkaan u joogo waxay qayb ay ka tahay inaan xiriir fiican la leenahay dowlad goboleedyada in shaqada dalka la dardar geliyo maxaa idinkaga qorshaysan waxaa nooga qorshaysan inay khasab tahay in ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wada shaqeeyaan fikirka ah marka in dadka Soomaaliyeed degmo iyo tuulo meesha ay joogaan loo wada adeego kan dowlad goboleedka madaxda ahna waa inuu sidaas u fahmaan kuwa baarlamaanka ama xukuumadda ama wasaaraha ama madaxweynaha magaala madaxda iyo dowladda federaalka ahna waa sidaas inuu fahmaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa dhalinyarada oo kulanka la yeeshay u sheegay in dowladdu ay dib u habeyn ballaaran ku wado dhaqaalaha ciidanka qaranka, siyaasadda, horumarinta arrimaha bulshada si loogu guuleysto himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. dalka amnigiisa in wax laga qabto ma ahan amniga kaliya wax laga qabto waa in amnigiisa wax laga qabto waa in dhaqaalihiisa wax laga qabto waa in siyaasaddiisa wax laga qabto waa in arrimahiisa bulshada wax laga qabto amnigu in dhalinyarada ay baagamuudo tahay amni darrada ay qayb ka mid tahay in musuqmaasuq uu jiro amni darrada ay qayb ka mid tahay